ducaale waxaan leeyahay inaas aadan keenan oo dhulkiisa xasuuqay 30 sano ilaa dhulkiisa xasuuqay oo dadkiisa laayo dadkiisa abar ka sii oo abaartan hata dadka gurmad hata u soo sameyn waay oo dadka dhacay oo dadka xuquuqdiisa dhacay oo waraaqda xoog ku haysta oo ninka ka guuleystay xoog ku haysta waxaan dhiiray ninka aadan keenan aadan barra ducaale waa isku soo raacin akula wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo waliba si kasta noola socotaan ku soo dhawaada barnaamijkii falanqaynta wararka la xiriira Soomaalida waddanka Kenya ay halkan aan idinku soo gudbin jiray waxaana ku soo qaadanaa hadba waxyaabaha ugu waaweyn iyo qodobada bulshada Soomaalida ee waddankan saameynta ku leh marka la fiiriyo guud ahaan wararka la xiriira waddanka Kenya halkan waxaan ku soo qaadan doonaa qodob la xiriira ismaamulka Wajeer xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka Eldas aadan keenan ay dadka shacabka ah ee deegaankaasi u jeediyeen fariimo kala duwan ama ay ka cabanayaan iyaga oo kaga hadlaya qodobo amaba oo uga cabanaya qodobo ku saabsan arintii la xiriirtay doorashadii iyo dhacdooyin gacan ka hadal iyo dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay deegaankaasi markii lagu dhawaaqay natiijada xildhibaanka iyo cidda ku guuleysatay kursigaasi xildhibaankii la tartamayay aadan keenan xilligaasi ayaa waxa uu aaminsan yahay in laga dhacay kursigaasi iyadoo sidoo kale tan dadka shacabka ee halkaasi ku nool ay sheegeen in aadan keenan uu dhibaatooyin kala duwan ku hayay dadka deegaanka muddo ku dhow 30 sano oo xildhibaanka ahaa deegaanka Eldas amaba uu xildhibaan baarlamaanka ku jira marka la fiiriyo guud ahaan eedeymahaas iyo cabashadaasi waxa xusid mudan in dhacdada ka dhacday habeenkii doorashada ama natiijada lagu dhawaaqay oo ku dhaawacmay IEBC xubin ka tirsanayd oo ahayd wiil Soomaaliyeed kaasi oo ugu dambeyntii lugta laga gooyay dadka shacabka ayaa tan iyo xilligaasi wixii ka dambeeyay waxa ay sheegayeen in aadan keenan uusan matalin iyagoo sheegay in uu ku guuleystay kursigaasi boray oo ahaa musharaxii la tartamayay waxa ay sheegeen in aysan marnaba u dulqaadan doonin aadan keenan inuu iyaga matalo iyagoo sheegay inaysan xitaa ka warqabin halka waraaqaha lagu guddoonsiiyay amaba soo bixitaankii isaga iyo natiijadii ugu dambeysay halka lagu guddoonsiiyay waxayna sheegeen inuu si qasab iyo jujuub iyo cagajugleyn uu ku qaatay kursigaasi waa sida ay hadalka u dhigayaan dadka ku nool ismaamulka Wajeer gaar ahaan deegaan baarlamaaneedka Eldas si kastaba ha ahaatee dadka shacabka ee halkaasi ku nool oo meel fagaara isugu yimid oo ay ku jiraan oday dhaqameed dhalinyaro hooyooyin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay fariin adag u direen aadan barre ducaale oo ah wasiirka difaaca ee waddanka Kenya kaasi oo la filayo maalmaha soo socda inuu booqdo deegaan baarlamaaneedka Eldas halkaasi oo xariga laga jari doono isbitaal weyn oo laga furay iyo sidoo kale maadaama uu wasiir noqday indhayn uu meelo kala duwan ku soo mari doono dadkii halkaasi ka hadlaya ayaa waxay sheegeen in ay aadan barre ducaale marnaba ka filaynin in uu ku soo hoos dhunto ama ay u keenaan aadan keenan uu keeno waxayna sheegeen in aadan barre hadii uu aadan keenan ku soo hoos dhunto ama isagoo la socdo uu yimaado uu cawaaqib xun kala kulmi doono ayna kala laaban doonaan kalsoonidii jacaylkii soo dhaweyntii iyo wax walba waxayna sheegeen inay ku mudaaharaadi doonaan fariintan culus ee loo diray wasiirka difaaca ee waddanka Kenya aadan barre ducaale ayaa waxay muujinaysaa sida dadka shacabka ah ay uga xun yihiin in aadan keenan uu yimaado deegaankooda fariimo adag ayayna halkaasi ka soo saareen haddaba maxay tahay waxyaabaha lagu haysto aadan keenan maxaayse dadka shacabkii sheegayaan aadan barre se maxaa la gudboon maxaa ay tahay waxyaabaha uu aadan barre halkaasi u aadayo talaabada uu qaadi doono ma aqbali doona fariinta dadka shacabka deegaan baarlamaaneedka Eldas وقضبضان halkan ku faaqidi doono saaxiibka Khalifa ayaa barnaamijka kala qayb galaya oo alaaba halkan aan ku wada falanqeyno barnaamijyada la xiriira arrimaha waddanka Kenya gaar ahaan Soomaalida waddanka Khalif soo dhawow bal nooga warbixi marka koobaad dadkaas shacabka iyo waxyaabaha ay ka soo saareen arinta la xiriirta booqashada aadan barre Eldas marka hore waxaan ognahay in shacabka Eldas ay hadda sheegeen in iyaga uusan matalin ninka la yiraahdo aadan keenan waxaan ognahay in aadan keenan oo dhibaato culus u geystay sidaga ay sheegeen shacabka ku nool deegaanka Eldas
doorashadii soo dhaafay aadan keenan waxaa lagu eedeeyey in uu ka dambeeyey qalalaasihii ka dhacay ismaamulka wajeer gaar ahaan degmada Eldas. waxaa la sheegay in dad fara badan lagu leeyay, waxaa la sheegay in haween fara badan lagu koofsaday iyo sidoo kale in ay ku nafwaayeen caruur fara badan. waxaa jirtay wiil Soomaaliyeed isaga baraha bulshada qabsaday kaasoo ku waayay mid ka mid ah xubnaha jirkiisa. marka waxaa shacabka Eldas ay sheegeen in iyaga ay aad iyo aad ugu xun yihiin in aadan keenan uu isaga isku maleeyo inuu iyaga matalo. waxaan ognahay in kiiska aadan keenan iyo sidoo kale Axmed Booray uu hor yaalo maxkamadda ismaamulka Gaarisa. marka waxaa la filayaa in dhawaan uu raaco ninka la yiraahdo Aadan Bare Ducaale una u raaco ismaamul Eldas, halkaasoo la filayo in ay furaan isbitaal cusub mise xariga ka jiraan isbitaal cusub. marka shacabkaasi waxay u digeen ninka la yiraahdo Aadan Bare Ducaale, waxayna u sheegeen in marnaba ay ka aqbali doonin in uu iyaga u soo dhaweeyo mise uu Eldas keeno ninka la yiraahdo Aadan Keenan. dhawaan waxaan arkaynay Aadan Keenan oo aad loogu buuqayay baarlamaanka dalka Kenya. kolley maxaa jiro, maxay ka warhayaan? waayahay marka aan fiirino ninka la tartamaya aadan keenan wuxuu ka soo jeedaa xisbiga hadda talada haya ayuu tigidkooda ku tartamayay. markaan fiirino ninka hadda kasoo la tartamayay ama aadan keenan la tartamayay kiis maxkamadeed buu geeyey oo uu ku doonayo in kiiskaas amaba uu arintaas uu ku helo. wuxuu ka soo jeedaa xisbiga ODM oo uu tigidkiisa ku tartamahayay. saan wada ognahayna isbahaysi ayaa ka dhaxeeyay kii uu ku tartamayay aadan keenan iyo Booray uu ku tartamayay. haddana saas oo ay tahay waxaad moodaa inay cadaawad xun halkaasi ka abuurantay. si kastaba ha ahaatee aadan keenan uu la ogyahay kursigaas inuu sanadihii lasoo dhaafay isagu uu xoreystay oo inta badan cid kasta kula tartanta uu isagu ku guuleysanayay. mar kala duwan cabashooyin ka soo baxayeen. maxaa la gudboon marka la fiiriyo cabashada shacabkiisa, kursigii oo maxkamad yaala iyo meeshaas in ay dhibaatooyin iyo qalalaaso ay ka dhaceen xilligii doorashadii? shacabka degmada Eldas waxay sheegeen in haddii ay fartaada iskaga dhigto inay tahay Ilaahay waa la iska jara, taasoo ay sheegeen in ninka la yiraahdo Aadan Keenan oo isaga uu iska dhigay nin aad u weyn, nin axba laga qaban karin. marka doorashadii qalalaasay ka dhacday shacabkii waxay sheegeen in isaga uu si qalad ah ugu guuleystay, laakiin aan halkan ka xaqiijin karo. laakiin kiiskaasi waxaa la geeyay maxkamadda, hadda wuxuu hor yaala maxkamadda High Court ayuu hor yaala, waxaana geeyay Axmed Booray oo ah ninkii ay wada tartamayeen. marka waxaa la filayaa in aadan keenan uu markii ugu horeysay tan iyo markii lagu dhawaaqay in isaga uu guuleystay uu tago ismaamulkaasi mise degmadaasi. marka wuxuu ka cabsi qabay in kaligiis uu halkaas tago. hadda shacabkaasi waxay sheegeen in uu rabo inuu doonayo inuu qudwa dhuunto ninka la yiraahdo Aadan Bare Ducaale. waxaan ognahay Aadan Bare Ducaale waa nin Soomaalida gobolka Waqooyi Bari aad u jecel yihiin, Wajeer, Mandera, Gaarisa kulli aad ay wada jecel yihiin. marka waxay sheegeen in waxay ugu baaqeen Aadan Bare Ducaale maadaama ay og yahay in iyaga ay jecel yihiin waa in uu ka waantooba mise waa in uu iska ilaaliyaa in uu soo raaco ninka la yiraahdo Aadan Keenan. aniga ahaan haddaan Aadan Keenan ahaan lahaa dan iska soo qaado, haddii shacabka aysan ku doonaynin, haddii ay shacabka rabin inaad aado, marka waxaa kula gudboon inaad shacabka waa shacabkaagii, shacabkan waa shacabka ka soo dhalatay, waa shacabkan waa shacabkii kusoo dooran jiray, waa inaad iska xaliso arintan kadib aad booqato mise aad aado halka iyaga ay joogaan. waayahay Aadan Bare Ducaale fariin adag oo u muuqatay digniin ay uga digayaan in magaciisa iyo sumcadiisa iyo jacaylkii loo qabay ay caqabad ku noqoto haddii uu Aadan Keenan keeno ayay dadku u jeediyeen. isaga maxaa la gudboon inagoo og in siyaasad ahaan Aadan Keenan iyo Aadan Bare laftoodu xilligii baarlamaanka iyo guud ahaanba aysan isku wanaagsanayn oo mar walba ahaayeen niman hadalla kulkulul warbaahinta Soomaaliya? hadda la joogo Aadan Keenan iyo Aadan Bare isku xisbi ma ahan. Aadan Bare waa xisbiga Jubilee, xisbiga UDA, halka ninka la yiraahdo Aadan Keenan uu yahay xisbiga Jubilee. marka markii baarlamaanka ay wada joogeen waxay ahaayeen niman kala duwan oo nin kasto daniisa raacin jiray. hadda la
joogana waxaan u malaynayaa in weli ay weli aad iyo aad isugu dhaween marka haddii mar aadan bardo cali loo hajibay oo la yirahdo ninkan niyo hanoo keenin waxaa ku haboon in hadduu talada inuu qaato talada uu qaato shacabka ismaamulka Wajeer iyo sidoo kale degmada Eldas haddii kalena agood ayuu leeyahay ninkan hore ayuu usii kaxan karaa wuxuu geen karaa Eldas halkaasoo uu ku samayn karo wada heshiisiin wuxuu wada heshiisiin karaa ninka la yiraahdo aadan keenan sidoo kale shacabka hanjabaada soo diray aadan bare waa nin aad u jecel ammaanka waa nin aad u jecel in Soomaalida ay walaaltoodo waa in Soomaalida ay noqdaan hal mid ay noqdaan marka waxaa laga yaabaa in aadan keenan uu wado halkaas geeyo uuna keeno maslaxo in uu ka dhex keeno aadan keenan sidoo kale shacabka soo diray hanjabaadaasi waayahay saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabinaynaa bal safarka aadan bare ee uu ku tagayo Ceeldhaas iyo weliba sidoo kaleeto waxyaabaha ka soo kordhana halkan isha ku haya